Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaaray meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena waa Saf TV. Fadlan haddii aadan channelka subscribe saarin subscribe noo saar. Haddii aad la socoteen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haddaba akhyaaray waxaan halkani maanta kaga warrami doonaa Arsenal iyo geemkii u dhexeeyay Newcastle United ee xalay la dheelay. Sidoo kale suuqa Arsenal Modric xagee ay xaalkiisa uu maraya. Sidoo kale McAllister iyo Enzo oo ah laba ciyaaryahan oo labadoodaba khad dhexe ah oo Arsenal ay raadinayso iyo injury-ga ciyaaryahanada Arsenal ooga soo kacay Smith Rowe iyo sidoo kale Cedric Soares oo Arsenal ay iibinayso. Haddii aan ku hormaro Arsenal iyo geemkii u dhexeeyay xalay Newcastle wuxuu ahaa geem cajiib ah kaasoo la filayay inay Arsenal ay ku hari doonto ama qof walbaba uu saadaalinayay in Arsenal ay Newcastle aysan gudbi karin ama aysan mari karin. Hase ahaatee geemka labada kooxood u dhexeeya ayaa wuxuu ahaa ciyaar aad u adag taasoo labadaba ay kusoo bandhigeen awoodooda. Halka Arsenal ay wax badan isku dayeysay inay furfurto difaacii adkaa ee Newcastle ayna isku dayeysay qaybtii hore ee geemkaba in ay goolal ka dhaliyaan. Hase ahaatee taas oo suurtageli weyday. Sidoo kale Newcastle ayaa iyaguna markooda aad u soo weerartamayay kuwaasoo halis u ahaa inay iyaguna Arsenal ay shabaqooda dhex dhigaan goolal. Hase ahaatee ma suurtagelin. Arsenal waxay heshay 3 penalty kuwaasoo lagu diiday 2 ka mid ahna ay xaq u lahaayeen inay helaan. Arteta ayaa markii la weydiiyay geemka markuu dhamaaday ciyaarta ayaa isagoo xanaaqsan wuxuu ku jawaabay 2 penalty u dambeeyay labaduba waxay ahaayeen kuwo xaq aan u leenahay. Hase ahaatee referee-ga ayaa looga baahan yahay inuu explain gareeyo. Haddii aan arrinta aan wax ka idhaahdo Arsenal uma baahna penalty inay hadda hesho 90 minutes ayay ahayd inay goolal ku xirto. Hase ahaatee waa positive oo Arsenal xalay dhibic ayay la soo baxday iyadoo welibana 7 dhibcood ku hogaaminaysay kooxda ay la ciyaaraysay xalay. Sidoo kale Arsenal ayaanan taa waxba u dhimeynin maadaama weli liiga ay hogaaminayso welibana geemka la ciyaaray ilaa hadda ay isku mid yihiin. Sidoo kale Arsenal ayaa geemka wuxuu u ahaa cashir kaasoo ay horay u anfacayo maadaama uu kusoo aadan yahay North London Derby ayna u baahan yihiin khaladaadkii ay sameynayeen geemkan inaysan sameynin oo ay improve gareeyaan waxyaabihii geemkan ka halaabay. Arsenal waxaa kusoo aadan North London Derby oo ogtihiin geem aad u weyn tegaba geemka ugu weyn North London lagu ciyaaro. Haatee intaasi waa Arsenal iyo geemkii xalay ay dhashay. Haddii aan galno suuqa Arsenal waxaa ognahay bilihii u dambeeyay Arsenal inay raadinaysay ciyaaryahanka ah Mykhailo Modric kaasoo lagu sheegay inuu yahay ciyaaryahan aad u fiican welibana style-ka Neymar mid la mid ah leh. Ciyaaryahanka ayaa la sheegay inuu yahay ciyaaryahan aad u dribbling badan aad u fiican welibana markii lagu amaanayay oo ragga football-ka aad u yaqaan khibradda leh ay ku amaanayeen ciyaarihii uu soo bandhigay Champions League uu ciyaarayay. Ciyaaryahanka ayaa haddaba Arsenal dhowr mar lacag ay bandhigtay lagu soo celiyay taasoo lacagtii ugu badnayd ahayd 65 milyan plus ay weliba wax la jiraan. Hase ahaatee Arsenal waa lagu soo celiyay lacagahaas. Iminkana waxaa la sheegayaa in ciyaaryahanka agentigiisa uu imaan doono London asagoo welibana la hadli doono geemka Chelsea la hadli doono ayagoo welibana ka wada hadli doono inay Chelsea ay iibsan doonto ciyaaryahanka. Chelsea ma bixin doontaa lacag 100 milyan ah ciyaaryahankan waa mid aan arki doonaa. Hase ahaatee Chelsea ayaa hadda meesha soo gashay oo isku dayeysay ciyaaryahanka inay Arsenal ka faramaroojiso. Ayuu aad u jecel yahay mar walba oo la weydiiyo welibana geemkii Arsenal habeenkii ay ciyaaraysay Brighton ayuu intuu kilib ka duubay wuxuu soo saartay statuskiisa taasoo ku cadeynayso ciyaaryahanka inuu aad u jecel yahay tiimka isaga xaggiisa wax problem ah kama jiraan. Hase ahaatee Shakhtar ayaa waxay doonaysaa lacag aan macquul gal ahayn Arsenal aysan dooneynin markaa inay bixiso. Halkaas iyo waa Modric. Sidoo kale waxaa ognahay Arsenal inay raadinaysay khad dhexe waxaana iminka suuqa yaalo ciyaaryahanada ugu fiican ay yihiin ciyaaryahanka Brighton u dheela khadka dhexe number 8 ilaa number 10 waa McAllister ciyaaryahanka u dhashay Argentina. Sidoo kale Enzo oo isna Benfica u dheela ciyaaryahanka ayaa jiro oo isna World Cup-kii hadda ahaa wacdaro soo bandhigay isagoo welibana da'diisa ay aad u yar tahay. Enzo sidaa ognahay iminka Chelsea ayaa ugu cadcad iyada ayaana raadinaysa iyada ayaana isku dayeysa inay saxiixato
inay saxiixdo. Hase ahaatee Arsenal iyaduna waa fursad meesha u taallo in ay ka faa'iidaysato maadaama ciyaaryahanka uu yahay mid suuqa u yaallo in uu lacag lagu iibsado oo keliya. Benficana ay lacag qaali ay doonayso. Sidoo kale McAllister oo noogu dhow welibana Premier League ka ciyaara Brighton ayaa wuxuu caddeeyey managergiisa inuusan dooneynin ciyaaryahanka in ay iibiyaan ama in uu iibiyaba January-dan hadda soo socoto. Wuxuuna sheegay asaga iyo Coswaydow inay yihiin labada ciyaaryahan ee ay ku tashanayaan in ay doonayaan inay Brighton ay horey u qaadaan. Hase ahaatee Arsenal weli suuqa waa ay ka raadinayaan waxaana war laga helin oo welibana aan hadda war aanan ka haynin ciyaaryahankii ahaa Youri Tielemans kaas oo aan jeclahay inuu Arsenal imaan doono maadaama uusan suuqa ku jirin. Sidoo kale xagga injury-ga ciyaaryahanada Arsenal ka maqnaa ayaa waxaa la sheegayaa in Emil Smith Rowe ay macquul gal tahay habeenka Monday-da ah in uu ciyaari doono gameka FA Cup-ka Arsenal ay la leedahay Oxford United. Gamekaasi habeenka waxaa la rajeynayaa inuu dheelo Emil Smith Rowe waana good news Arsenal fans ayuuna u yahay. Sidoo kale Arsenal ayaa waxay doonaysaa inay iibiso ciyaaryahanka Cedric Soares waxaana la sheegayaa in ciyaaryahanka ay raadinayso Fulham. Hase ahaatee ay isku fahmi laayihiin ciyaaryahanka lacagta uu qaado weegi. Ciyaaryahanka hadda Arsenal wuxuu ka qaataa 63,000 weegi taas oo Fulham ku adag imika, laakiin weli waxay isku dayayaan inay ciyaaryahanka ay ku qanciyaan inta in ka yar ayna iibsadaan. Khiyaaray wararka maanta aan idin heeno waa naga intaa. Waxaan idin leeyahay videogaasi subscribe, like, share wax walba ku sameeya sii gudbiya meel walbana gaarsiiya. Haddana waxaa idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. Wixii commentigana qaybta commentiga ayaad noogu reebi kartaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.